Labaduba waxay ahaayeen kuwo aan waxba galabsan, laakiinse guryahoodii saxda ahaa caawa ayay u hoyanayaan. Raaqiya Faarax iyo sidoo kale Salmaan Axmed xalay ayaa nin sida la sheegay cabsanaa waxa uu ku dilay gudaha magaalada Boosaaso, hase ahaatee gelinkii dambe ee maantay ayaa lagu aasay isla magaalada Boosaaso. Aaska waxaa ka soo qayb galay badi dadkii ku noolaa magaalada Boosaaso oo aad kaga naxay geerida Raaqiya iyo sidoo kale Salmaan. Salmaan waxa uu ku jiray da'aadda 5 sano waxaana habaryar u ahayd sida la sheegay Raaqiyo. Bil Ramadaan ayay labadoodu geeriyoodeen, weliba 10kii dambe ee khayrka badnaa. Aan u wada duceyno Raaqiya iyo sidoo kale Salmaan. Salmaan waa cunug yar oo saqiir ahaa, laakiinse isagoon waxba aan galabsan gurigiisana jooga waxaa haleeshay risaas ka timid sida la sheegay nin cabtooyaha ama cabsanaa xilligaasi. Raaqiya iyadana waxay ahayd gabar firfircoon isla markaana ay aad u jeclaayeen dhalinta magaalada Boosaaso. Alla ayaa labadooduba jeclaystay isla markaana dunidan ka oofsaday, balse dadka ayaa aad kaga naxay geerida Raaqiyo iyo sidoo kale Salmaan. Si naxariis ay ku jirto aan ugu wada duceyno, caawa ayay noogu baahan yihiin ducadeenna. Siina faafi muuqaalkan si dad badan uu u gaaro isla markaana labadoodu ay ugu duceeyaan. Dad badan oo ka soo qayb gala aaska Raaqiyo iyo sidoo kale Salmaan ayaa aad u ilmeynayay. Maalmo ka hor waxay ahaayeen cunug yar iyo sidoo kale habaryartiisa oo wada faraxsan isla markaana dhoola cadeynaya, laakiinse ajashooda oo timid iyo sidoo kale geeridooda oo degdeg ku timid waxaa arrintan ay noqotay mid si weyn loogu hadalhayo gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Raaqiya iyo sidoo kale Salmaan marka qabriga loo sii waday oo boqolaal qof aaskooda ay ka qayb galayeen, dad badan ilmada ayay cisho waayeen inta wadada lagu sii jiray. Waxay dadku aad ay kaga naxeen geerida Raaqiya iyo sidoo kale Salmaan. Inkastoo waqtigooda uu soo ilaaday, laakiinse waxay ahaayeen ubax soo koraya isla markaana mustaqbal ballaaran ka lahaa dunidan.